Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waan idin salaamay asxaabta. Waa mar kale iyo Maxamed Sahal. Insha Allah waxaan rabay videogan inaan nugula waago ama in la share gareeyo qaabkaad ugu bedeli kartid moobilkaaga aad ugu dhigi kartid sida iPhone oo kale. Run ahaantii horta waad ka dhigi kartaa laakiinse uma shaqeynayo gebi ahaan uma shaqeynayo dhammaan shaqooyinka uu qaban jiray oo dhan uma shaqeynayo laakiinse xoogaa qaabkan wuu ekaan asxaabtana xoogaa waad ku siri kartaa. Haddaan u tuso run ahaantii hadda waan isticmaalayaa waan iftiinka iyo dalaacaya sidii iPhone oo kale dhammaan wixii dhan shaqooyinka oo dhan way qabanayaa. Run ahaantii adiguna waad samayn kartaa waxaas oo dhan waad bedeli kartaa application xitaa iPhone qaabka uu soo dhigayo waad aragtaan. Haddaba waxaan rabay inaan guda galno qaabka aad u bedeli kartid. Asxaabta waxaa ku soo noqday moolkii caadi baan ka dhigay. Waa moolka hadda waa Galaxy caadi weeyaan ama Android caadi ah. Waxaan galayaa haddaba mowduuca ugu muhiimsan baan rabaa inaan ka hadlo aan galo. Haddaba markaad rabtid markaad ka dhiganaysid moolka ama u bedelaysid waxaa lagaa rabaa 3 application. Application koowaad waxaa loo yaqaanaa Phone X Launcher sida uu u yaalo ugu qor ama iPhone 2 alif sida ugu yaalo ugu qor ama linkiga xagga hoose ku yaala Play Store kala soo deg. Sidoo kale waxa weeyaan lock screen and notification center kaasna Play Store kala soo deg ama linkiga xagga hoose kala soo deg. Control center iOS 14 intaba waa isticmaali kartaa. Haddaba aan mid tuso Play Store ka galo. Waxaan galayaa hadda Play Store kan galayaa. Play Store kan gali iPhone waxaan ku qorayaa halkaas aan sheegay Phone X Launcher baan ku qorayaa. Automatically oo ka soo saaray wax kale application wax kale ku saar maayo wuxuu ku saarayaa application ka waxaana ku qoran Phone 2 alif Launcher buuda magaciisa ka bedeleen laakiinse Phone X Launcher baa la oran jiray markii hore. Waxaan kaloo application ka soo download hadda waa open buu leeyahay waan soo download gareystay adoo soo dirsanaysa. Application ku xiga wuxuu ahaa lock screen and notification iOS sorry. Okay. Asxaabta ka soo dhulgeysanaysidna waxa weeyaan waa kan casaanka ah badanka hawada xogaa u yara adag tahay laakiin kan casaanka soo install gareyso waa ka anigu install gareysan yahay adiga hadda uu soo xagga taabanaysa install baad ku dhufanaysaa open baad dhahaysaa. Sidoo kale application kale lagaga baahan yahay waxa weeyaan waa Control Center inkastoo muhiim aan ahayn labada ugu horeeya muhiimsan. Ka kala soo dhulgeysanaysid waa kaas weeysna ka u sareeya isna wuu soo dejisan yahay. Haddaba waxaan galaynaa application-adan u tagtaynaa hadda waxaan tagayaa lock screen kan galayaa lock screen kan tan wax kale lock screen kan galayaa waad aragtaan dooranaya dhammaan intan waxyaalihii uu hayo oo dhan weeyaan. Laakiinse muhiimadda ugu halkan ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaad furanaysaa qaybtaas halkani cagaarka ah adii cagaarku maaha waa guud saas kale u eg tahay adoo waxaad ka dhigaysaa cagaar baad ka dhigaysaa oo halkan u jiidaysaa cagaar baad ka dhigaysaa waad ka soo baxaysaa wax kale ha taaban. Sidoo kale Control Center ka tag Control Center waa kan xagan ku jira gal soo yarkay xoogaa wuu yara dul qaadanaysaa isna waa guduud saas u yahay isna waad furaysaa. Sidoo kale xoogaa waxaad ka yara bedelaysaa oo ugu muhiimsan aad bedelaysaa waxa weeye waa size-ka iyo color-ka labadaas ugu muhiimsan. Hadda size-ka intaad ka dhigaysid size-ka xagga hoose fiiri xagga hoose la dhaqaaqaysa. Waxaan ka wadaa halkan hoose halka bal way la dhaqaaqaysaa waa Control Center-ka weeyaan. Haddaan saas soo yiraahdo waydi weeyaan midabkan doonaan ka dhigi karaa haddaan doono khafiif ama ka dhigi karaa lama asaan loo aragba lama arkayo asaan ma wada dhigi karaa ikhtiyaarka aduu ku xiran yahay hada jeer isagana intaas ugu muhiimsan. Hadda waxaan galayaa qaybtii ugu muhiimsaneed oo ah inaad iPhone gabiga ka dhigtidba. Anu hadda waan iska soo xidhay xoogaa waxaan rabaa inaan sidii bilowga ka dhigo oo kale aan doonayaa.
haddaba saan sheegay waad soo kicinaysaa applicationka soo kici kulfa soo kici soo kicinaya applicationka waad sugaysaa waqti buu qaadan markuu saa ku saaro haddaba waxyaalo badan buu ku weydiinayaa backgroundka maxaan kaaga dhignaa mase kanaad doonaysaa anaa backgroundkan hadda dooranaya waxaan jeclahay hada jeer backgroundka inaan doortaan jeclahay xadiritaan kan iga dhigan waxuu ku saarayaa backgroundadii iPhone-ka ayuu ku saarayaa ka soco no okay kaasaan xoogaa ugu yara jeclahay laakiinse si aan xoogaa waxaan aad uga sii jeclay isagana kanaan ka jeclay okay waxaan dhahayaa get started baan taabanayaa kanaan taabanayaa xaggan cas baan taabanayaa get started waad sugayaa waqti bay qaadanaysaa waxyaalo kale oo badan oo ku weydiinayaa okay meelaha ugu muhiimsan waa halkan daba weeyaan halkan allow baad dhahaysaa halkanna allow baad dhahaysaa waa kamarada inaad ogolaatid okay xagga hoose calaamadda blue aad taabanaysaa enable ogolow waad furaysaa okay haddana waad taabanaysaa waxaad heshaa iPhone 12 ka help applicationka fur kadibna waa kan inaga keeni waa furaynaa haddii lock screen-ku ka xidhnaana waad u furaysaa isna waa furay allow baad dhahaysaa okay qaybta ugu muhiimsan wuxuu ku leeyahay maqaabka iPhone-kan ku ekaysiinaa macal applicationada mise applicationadan ku diinayo moolka gudihiisan ku ekaysiinaa xogaa waa isla mid laakiinse waxaan jeclahay inaan wada iPhone ka dhigo iPhone baan ka dhigayaa wuxuuna sidoo kale wuxuu weydiinayaa calaamadaha yaryar miyaan kaa qarinaa calaamadaha yar badanka la isticmaalo miyaan kaa qarinaa calaamadahaas oo weeyaan calaamadaha ku jiraan miyaan qarinaa haddaad rabto iska qarisid full screen-kan taabo waa iska qariyay get started waqti buu qaadani waad sugaysaa kabacdi marka uu toos wuxuu ugu ekaanayaa iPhone-ka okay waa ka wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay falaadhani waa notification-ka weeyaan tan control center-ka iyaduna waa yani haddaan dhinaca shaashada qaybta haddaan hoos usoo jiido waxay imaanaysaa qaybta control-ka imaanaya waad arki doonaa notification center-ka wuu ku tilmaamayaa laakiinse waad tijaabin kartaa okay waan tijaabiyo adiga waxaan iga xig waan ku weydiinayaa okay sorry okay waad aragtaan soo ma ifka ma dalaci karo wuxuu ku leeyahay waxaad siisaa ogolaanshihiisii yes baad dhahaysaa waad u ogolaanaysaa siinaysaa kabacdi waxaa kale adaa bedbedelaya okay asxaabta hadda waxaan eegaynaa saan ii sheegay control center-ka okay inuu ifku dalacayn karaan eegaynaa waad aragtaan ifku dalaacmaya sida iPhone-ka kale codku waa la mid dhammaan waxyaalaha kale waad eegi kartaa screen waxyaalaha la mid yahay oo kale sida sorry halkan iga soo dhacday iPhone-ka ma loo isticmaalo ka xumay ma aqaani iPhone ma numa isticmaalo asaate laakiinse maanta moolka ku baran karaa adiguna sidoo kale moolka ku baran kartaa control center-ki weeyaan qaybtan bidixda xigta haddaan isna soo riixo waa notification-kii si toos ah wuxuu toos kugu ekaanayaa iPhone buu kugu ekaanayaa okay applicationada xitaa sidan waad ka dhigan kartaa ma waxaad samayn kartaa inaad xoogaa ka yara bedeshid qaab socodka qaabka u soconayaan oo kale anigu waxaan jeclahay inaan ka dhigo scroll effect-ga tag waxaan ka jeclahay inaan ka dhigo right down inaan ka dhigaan jeclahay wuxuu weydiinayaa badanka tana ku weydiinayaa waxaad ku dhufanaysaa taa isticmaalaysay tanaan haddaan u isticmaalaa okay waxaan eegayaa applicationada markaan rabo ku xiga inaan aado qaabku dhaqaaqayo aad aragtaan soo maaha qaabka adaa bedbedelin kara waxaasoo dhan control center-ka waa tusay qaabka tusay ta ugu muhiimsan waxa weeye dadka indhahooda soo jiidata waa tan si kale haddaan ii tuso xogaa yar waxbaatay sorry waa tan weeyaan baashan yar halkaa ku maraysa taas calaamada qaban leh baasha halkaa maraysa
aad u cajiib tahay iyaduna waxyaalo badan bay kala maamushaa assistive waa loo yaqaanaa laakiinse waxay ku geynaysaa homekii recent appkii favorite-kii device-kii notification control center hadda ka rabtid control center kadaan taabto iyo toos igu soo kicinaysa automatically marka baashan yari iPhone toos la socotaa waana laga maarmaan wixii iPhone ka dambeeyay aduu waxaan filayaa 8 wixii ka dambeeyay aduu toos waa la soo raaciyaa haddaba muhiimadda waxa weeye haddii application-ku sideen uu kaaga dhago oo aad ka dhaqaajin kari weydo qaabkeebaad u bedeli kartaa qaabkeebaad iskaga saari kartaa oo sidaad hore u noqon kartaa ruuxaantii kastana anu aanan jeclayn inaan saaro laakiin soo dhib ma laha waxaad samaynaysaa waxaad tagaysaa application-kii markii horeba ku awoodda ku siiyay inaad ka dhigatid iPhone ayaad tagaysaa application-ka isticmaalaysay waad cadaajinaysaa sidii Galaxy oo kale dhahaysaa uninstall ama delete bukan isu saaraya sababtoo iPhone ka dhigay delete baan dhahayaa waan saari okay markaan saaro si toos waxay ka baxay application-ka iga baxay haddaan u baahdo oo soo dejisanaya waxaan ku noqday inkastoo background-ka iga bixin wali background ima tigin laakiin waad aragtaan Soomaa waad aragtaan waa Galaxy automatically sidiisii ku soo noqday insha Allah waxaan soo waday application kale oo badan baan soo waday oo isna Android-ka lagu qurxiyo kale waxaan soo waday sidoo kale waxaan soo waday application ku saabsan qaabka mookaga laptop ka dhigay si aad hadda ula socotid barnaamijkaas fadlan subscribe saar asxaabtaadana la wadaag aad baad u mahadsantihiin